qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa kuraasta golaha shacabka ee taala magaalada Beledweyne ayaa ku eedeeyay madaxweyne ku-xigeenka boobka doorashada Cabdiraxmaan Axmed Gacal ha inuu faahfaahiyo warkan. waxaa maanta baaqatay doorashada 11 kursi oo la filayay doorashadooda in lagu qabto magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. doorashada maanta baaqata ayaa loo sababeeyay kadib khilaaf soo kala dhaxgalay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyo ku-xigeenkiisa Yuusuf Dabageed. khilaafka ayaa waxa uu salka ku hayaa doorashada 11 kursi oo ka harsan deegaan doorashada labaad ee maamulkaas. madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa la sheegay in la daafuro oo aan cid gaar ah loo xirin kuraasta, sidaas darteed waxaa ka soo horjeestay ku-xigeenkiisa Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. khilaafka soo kala dhaxgala labada mas'uul ayaana laga dareemayaa gudaha magaalada Beledweyne. Cabdullaahi Goodax Barre oo ka mid ah musharaxiinta xildhibaanada ayaa sharaxay waxa uu ku yimid khilaafka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. waxaan noo sheegay in madaxweynuhu rabo in muxuu ahaa kuraasta la furo oo lagu tartamo, madaxweyne ku-xigeenkuna uu rabo inuu dad u xiro. sidaas ayaa noo sheegay. marka muxuu ahaa waxaa yidibilo fiican lahayd oo runtii wanaagsaneed in labadooda wada jiro ah ay musharaxiinta oo dhan u yeereen una sheegeen in kuraasta lagu tartami doono oo aan marnaba qof loo xiri doonin. labadooda ayaa soo wada jeediyey. marka dadku aad ugu qanacsanaayeen musharaxiinta, laakiin haddana waxaa muuqatay in dardaarankii iyo wixii ay noo sheegeen ay fugaaraha noogu sheegeen wax ka duwan howsheeda bilaabatay. waxa noo fasiraayo in muxuu ahaa khilaafkoodu uu ku sabaysan yahay waa qowlkii ay sheegeen oo labadooda mid ka mida uu rabo inuu qowlkaas ka baxo. isagoo sii hadlayay wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre waxa uu sheegay in haddii kuraasta dad gaara loo xiray ay ka dhalan karto dhibaato. waxa uuna tilmaamay in doorashada in la daafuro madaxweyne Guudlaawe uu raali ka yahay, balse ku-xigeenkiisa Yuusuf Dabageed uu doonaya in dad gaara loo xiro. waxaan ka baqayaa in haddii la kala xishoo waayo meeshaas dhibaato weyn ay ka soo baxdo. annaga mas-uuliyadda looma saarna madaxweyne ku-xigeen. mas-uuliyadda maamulka mar haddii madaxweynuhu joogo, annaga madaxweyne ku-xigeen ma naqaan, madaxweynaan naqaanaa. madaxweynahana waxaan ka sugaynaa wixii uu fagaara ka ballan qaaday inuu sameeyo. wixii uu u baahan yahay oo taakuleena ama muxuu ahaa inaan ku garab istaagnan kuraastaas in ummaddu ku tarsanto waa ku taageerina. maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada Beledweyne laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan kadib markii ay soo baxeen in kuraasta qaar loo xirayo musharaxiin gaar ah oo ay wataan madaxda sare ee maamulka Hirshabeelle. lamaamaanka maamulka Galmudug ayaa ciidamada ahlu sunna waxay ku eedeeyeen dilka askar ka tirsan ciidanka dowladda lagu geystay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Farxaan Axmed Cabdi ayaa soo waramay. laamaha amniga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa ka hadlay weerar shalay ka dhacay gudaha magaalada Dhuusamareeb oo ay ku dhinteen 2 askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda, halka uu mid kalena uu ku dhaawacmay. sidoo kale dableydii hubaysan ee weerar ka geysatay ayaa dhacay gaari ay wateen ciidamada dowladda ee la dilay. taliyaha booliska magaalada Dhuusamareeb Maxamed Mire warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Dhuusamareeb waxa uu sheegay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen ururka Ahlu Sunna. sidoo kale taliyaha ayaa sheegay inay la mid yihiin ururka Al-Shabaab maadaama ay banaysteen dhiigga qof walba oo ka aragti duwan, waa sida uu hadalka u dhigaye. kooxa burcad diimeed oo qowleysataa oo magaca diinta ku qaraabta sida argagixisada Al-Shabaab ayagoo shacabkooda ku dhex jira ayay kooxahaas maaragtay qowleysatada burcadda oo diinta ku qaraabta oo magaalada caasimadda ku soo galay si dhuumaalaysiya ayaa wax gaarsiiyey. waxaad u jeedaan diinta ay sheeganayaan inay maaragtay waxba kama jiraan tahay iyo abtirsiisanada ay ku abtirsanayaan sunna wal jamaaca dadka ummadda Soomaaliyeed oo muslimiinta ah raallina kama ahan in maaragtay dhiigga islaamka la daadiyo. dadka wax ku oolka oo difaacaya qaranka na in la dilo
raalli kama ahan diinta islaamka meelna uguma soo aruurto waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Galmudug inay ku baraarugto qatarta maaragtay ay wadaan kooxahaas sheegta sunna wal jamaaco waxaan leenahay unugu digaynaa ilmihiina ka reebta waad u jeedaan waa qatar waa argagixisada al-shabaab oo kale waxay ka sameynayaan magaalada caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb waad u jeedaan dhibaatada ay ka geysteen maanta waa argagixisnimo ma ahan wax diinta islaamka madqal ku leh ma ahan maaragtay isha sharciga wax maaragtay ku wanaagsan iyo amniga midna hadalkan ayaa ku su'aadaya xilli ay jiraan cabsi weyn oo laga qabo in mar kale uu dagaal dhex mari karo ciidamada ahlu sunna iyo sidoo kale kuwa dawladda kadib markii labada dhinac ay warbaahinta iyo baraha bulshada isku mariyeen hadallo xanaf leh iyo sidoo kale soo bandhigida hub iyo gaadiid midba midka kale lagala soo goostay taasi oo bulshada u keentay dareen amni darro oo xoogan kal hore dagaalkii Guraal ku dhex maray ciidamada dawladda iyo kooxda ahlu sunna dhamaadka bishii Oktoobar 2021 waxaa shacabka weli u sawiran dareenkii madaafiicdii la isku adeegsanayay barakicii baasanay dhimashadii iyo dhaawacii ka dhashay iyo burburkii hantiyadeed ee magaalada soo gaaray oo weli aan qarsooneen Farxaan Ahmed Cabdi KNN Dhuusamareeb mas-uuliyiin ka tirsan dowladda deegaanka Soomaalida ayaa loo xiray musuqmaasuq ay ku sameeyeen raashin gargaar ah Cabdixakiim Gamadiid ayaa warkan soo diray gudoomiyaha maxkamadda gobolka Afdheer ayaa sheegay inay xukumo ku rideen eedeysanayaal gudoomiyaha maxkamadda gobolka Afdheer ayaa sheegay in xukun lagu riday madaxii xafiiska arrimaha siyaasadda madaxii xafiiska nabadgelyada madaxii xafiiska hortagga khataraha iyo masiibooyinka ee degmada Godgod waxa uu sheegay inay yihiin kuwa lagu seedeeyay inay dhaceen raashin lagu talagalay dadka shacabka ah maamulkan xukunka lagu riday ayaa la sheegay inay bakhaarka raashinka gurmadka abaaraha ee degmada Godgod ee gobolka Afdheer kala baxeen 30 kiish oo bariis ah 25 kiish oo sonkor ah iyo 5 jirgaan oo saliid ah waxaana la sheegay inay u dhaceen xilli habeenimo ah gudoomiyaha maxkamadda oo hadlay ayaa sheegay in eedeysanayaasha ay isku difaaceen inay doonayeen inay dadka masaakiinta u qaybiyaan isla markaana ay ka ahaayeen xamaali markaasi qaaday si dadka loo gaarsiiyo waa kan gudoomiyaha maxkamadda gobolka Afdheer oo arrimahaasi ka hadlaya waxaan xukunay saddex xubnood oo ka tirsan maamulka degmada Godgod ee gobolka Afdheer oo musuqay raashinkii loogu talagalay shacabka nugul ee abaaraha la tiir daran waxayna lunsadeen 30 kiish oo bariisa 20 sokora iyo 5 jirgaan oo saliid ah waxaana la waafajiyay sharciga mid walbana waxaa lagu xukumay 12 sano iyo 15 ganaaxa iyadoo loo codsaday bayaanka tirsigiisa uu yahay 881 isbaaro 2015 qodobkiisa 9aad farqada 2 ayaana loo codsaday waana lunsaday raashinkii loogu talagalay dadka nugul ee abaarahan la ildaran waxayna u bareereen inay lunsadaan raashinka iyagoo ah dadkii mas'uuliyiinta ahaa ee degmada Godgod ee loogu dhiibay raashinka waxaana ka mid ahaa madaxii RRC-da hogaankii nabadgelyada iyo xiriirka dadweynaha si cad baa loogu cadeeyay raashin furan uu baxay oo waxaa laga soo raray in shacaba ay ka iibsadeen gurigiisa oo ninka shacabka uu ku jiro xukunkan lagu xukumay nimankan oo la soo qaban waayo isagana maqnaansho lagu xukumay xirnaalintu cadaaladaha ay soo dhaweysatoodan shacabka in loogu cadeeyay in ay fal dambiyeed ka galeen ayagana ay ka dhigteen difaacoodu warqada ay soo qoreen ay leeyihiin dambiga amaanan jirin oo qura wax kale oo difaacu la yimaadeen ma jirto xabsigay ku jiraan jeelkana loo gudbin doonaa biidni raxmaan Cabdixakiim Gamadiid warbaahinta kulmiye jijiga dowladda Jabuutina waxay saraakiil ka tirsan wasaaradda maaliyadda ee dalkeeda maxkamadda u soo taagaysaa eedo la xiriira musuqmaasuq Zikriya Maxamed Salaad inoo faahfaahiyo warkan xeer ilaaliyaha guud ee Jabuuti ayaa waxa uu sheegay in xisaab hubin la sameeyay lagu helay in lacag balaayiin Faransa ah lagu lunsaday heshiis khiyaano ku dhisan oo dhex maray saraakiil ka tirsan wasaaradda miisaaniyadda iyo ganacsato warbixin uu soo saaray xeer ilaaliyaha ayaa waxa lagu sheegay
in wasaaradda miisaaniyadda ay lunsantay hanti dadweyne oo lagu dhiibay in ay ku daboosho qarashaadka dawladda iyadoo cadad ballaaran ku bixinaysa adeegyo u muuqda kuwa been abuur ah oo aan jirin. warbixinta ayaa waxaa lagu sheegay in lacagtan lagu lunsaday qalab iyo alaabo aan loo baahnayn oo si soo noqosho leh looga dalbaday shirkad, taasi oo lagu sheegay in dibudhis lagu samaynayo dhismaha wasaaradda iyo qalabyo kale oo ay ka mid yihiin kuwa xafiisyada sida kumbiyuutarada iyo agabyo kale oo qiimahoodu gaarayo malaayiin lacaga. xeer ilaaliyaha ayaa waxa uu sheegay in la xiray 2 mas'uul oo ka tirsan wasaaradda miisaaniyadda iyo wasiir hore. waxa uu sidoo kale sheegay in la xiray qaar ka mid ah ganacsatada ku lugta lahayd lunsanshada lacagtan iyo xubno kale oo baaritaanku uu soo galay. sida uu sheegay xeer ilaaliyaha, baaritaankan ayaa waxaa xaqiijiyey inuu jiray heshiis khiyaano ku dhisan oo dhex maray qaar ka mid ah ganacsatada iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda miisaaniyadda lacag balaayiin Faransa ah oo hanti qaran ah. xeer ilaaliyaha ayaa intaasi waxa uu ku daray in dhowr ka mid ah ganacsatada ay qirteen eedaha loo soo jeediyey islamarkaana ay soo celiyeen qaar ka mid a lacagtii ay sida sharci darrada ah u qaateen. baaritaankan ayaa sii socon doona sida uu sheegay xeer ilaaliyaha, islamarkaana dadka ku lugta leh loo gudbin doono xafiiska dacwad oogaha guud si cadaaladda loo marsiiyo. dadka la xiray iyo dhammaan kuwa la eedeeyey ayaan si degdeg ah looga heli karin jawaab ku aadan eedda loo soo jeediyey. madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa allaamaha ammaanka ee maamulkiisa waxa uu faray inay xoojiyaan dagaalka lagula jiro al-shabaab. siciid xasan faarax ayaa soo diray warkan. madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidamada ammaanka puntland. kulankan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda amniga, xubno ka mida golaha wasiirada iyo saraakiisha ciidamada kala duwan ee puntland. madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ciidamada ku bogaadiyey sida ay mar walba heegan ugu yihiin ka shaqaynta amniga, guulaha laga gaaray laga dagaalanka kooxaha al-shabaab iyo daacish, iyo adkeynta amniga gudaha iyo dibadda puntland xilli uu dalku ku jiro marxalad doorasho. madaxweynaha ayaa kula dardaarmay ciidamada in ay sii laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan sugidda amniga guud ee deegaanada puntland. ciidamada puntland meel kasta ay joogaan inaan ku bogaadiyo shaqada baaxadda leh ee ummadooda iyo dalkooda u hayaan, sida howlkarnimada leh ee shacabkooda ay u difaacaan, har iyo habeenna ugu soo jeedaan. waxaana intii ku shahiiday ilaahay subxaana wa tacaala ugu baryayaa inuu jannadii geeyo, inta ku dhaawacantana ilaahay ugu booqanayo. dabcan marxalad adag ayaa dadkeena iyo dalkeena uu marayaa, oo dhibaatada ugu weyn ay ugu muhiimsan tahay dhinacyada amniga, oo runtii dadka noloshooda iyo deganaanshahooda aan rabin oo xag jir ah ay dhibaato badan ku hayaan sidii ummaddan nolol degan ay ugu helhayd. puntland runtii waxa ay ilaahay ugu gargaaray inay dadkeedu gartaan cadowgaasi inuu yahay cadow aan marna la noolaan karin, oo ay tahay in ummadda laga qabto sifo kasta oo looga qaban karo. dadaalkaas la bixiyey saraakiisha ka shaqaysay aad baan ugu ammaanaya. madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo maalmihii u dambeeyey ku sugnaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari, halkaasi oo u tegay xalinta khilaafkii ka dhashay xilka qaadistii uu ku sameeyey agaasimaha hay-adda BSF iyo weliba sidoo kale doorashadii 16 kursi ee sabtidiina soo dhaaftay lagu qabtay magaalada boosaaso, ayaa la filayaa in uu madaxweynuhu dib ugu soo laabto magaalada Garowe ee caasimadda puntland. siciid xasan faarax ka yeenen wararka puntland. dhegeystayaal warka subaxnimo waxaa idinkaga imaanaya shabakadda wararka kulmiye. markan akhbaaraadka dibadda, in ka badan 100 dabdamiis oo ku sugan Britain ayaa la tacaalaya dab ka kacay dabaqa 17 ee dhismo la isku daray oo ku yaala bariga magaalada London. booliiska ayaa sheegay in dhismaha laga saaray dadka, waxaana la xiray wadooyinka agaga Whitechapel. Lin oo arday wax ka barta kulliyadda dhaqaalaha ee London deganna dabaqa 20aad ayaa dhacdadan ku tilmaamay mid cabsi badan. dabaqa waxaa la rumaysan yahay inay dad ku go'doonsan yihiin weli, sidoo kalena waxaa ku yaalo dukaamo badan oo hanti badan ay dhex taalo. ugu dambeyntiina John wakiilka joogtada ah heshiinaha u jooga qaramada midoobay ayaa ku nuuxnuuxsaday shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay in hub iyo calooshada u shaqaystayaal loo diray Ukraine ay xaaladda ka sii dari doonto. udiridda hub iyo calooshada u shaqaystayaal loo diray Ukraine waxay ka sii dari doontaa xaaladda, waxayna abuuraysaa arrimo halis ah oo cusub, ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
waxaan ku baaqayaa in la xakameeyo in la xoojiyo dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu joojinayo colaadda sida ugu dhaqsaha badan si loo xoojiyo ilaalinta nafta iyo hantida ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey waxaan ugu baaqayaa maraykanka iyo midowda yurub iyo wadahadal siman lala gala ruushka si aysan ugu sii darin dhibaatada isa soo taraysa sanadihii lasoo dhaafay inay ugu golxaaraan xaaladda amni oo laisku dayi karo in ay nato ay sii xoojiso hubka ay geynayso wadamada ukrain iyo kuwa xubnaha ka ah nato ee bariga yurub ku sugan ay xaaladda ka sii dari doonaan hadday hub eegeeyaan dalka ukrain